الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. waxaynu ku soo jirray baabkii ku saabsanaa baabu maa jaa'a fii shaybi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam, axaadiistii ku timi cirada nebiga sala allahu aleyh wasalam oo nebiga ka warramaysa ciradiisii timihiisa intee cirowday. xadiiska 41 qaala imaamu tirmidiyu xaddasanaa abu kuraybin محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن إكرمة عن ابن عباس قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت؟ قال شيبتني هود والواقعة. الحديث. أبو كريب ومحمد بن العلاء ابن كريب، محمد بن العلاء ابن كريب كن يدي سنة أبو كريب بالورنشري وهمداني قبيل كهمدان ليلهذي وين ayaa loo nisbeeyaa kuufi baanu ahaa, wuxuuse ku caan ahaa kunyadiis. waa nin hiqoo xaafid ah, asxaabuulkutubi sittana waxbay u wariyeen, bal wuxuu ka mid yahay 9 shiikh ay wadaagaan asxaabuulkutubi sitta. ruwaadda 6 kitaab ee waaweyn ee 2 saxiix iyo 4 sunan wax loogu wariyena shakhsi kaleoo maxamed ibnu calaa la yidhahdaa kuma jiro, waa isagoo qura. mucaawiyatu bnu hishaam waxa weeyaan waa mucaawiyatu bnu hishaam alqasaar abulxasan alkuufi. waa nin saduuq ah, laakiin awhaam aan badnayn buu leeyahay oo wakhtiyada qaarkood uu markaa waxyaro qaldo ama ismoodsiiyo ayuu leeyahay. alqasaar waxaa loo isticmaalaa waa iska naanays, waxaana loo isticmaalaa ruuxa markaa dharka maydha ama doobiga ah. kollay kaasoo kale qasaar fii luqati alcarab lagu yidhahdaa. ma aqaan siday markaa laqabku sheikha ku qabsaday, miyuu ku shaqaysan jiray. 4 asxaabu sunan iyo muslim ayaa wax u wariyey, bukhaarina adabulmufradku wax ugu wariyey, saxiixa waxba uguma warin. marka culamada qaarkood xadiiskiisa kollay waa yaro daciifiyaan maadaama uu awham leeyahay, khaasatan weliba haddii mukhaalafo iyo wax ka soo baxaan. shaybaan ayuu ka warinayaa. shaybaan waa shaybaan ibni cabdiraxmaan annaxwi. naxwaha loo nisbaynaya cilmu naxwe ma aha, waa qabiil markaa ama jilib naxwatu la yidhaahdo oo asdi ka mid ah. annaxwiyi iyadoo la leeyahay waxaa loo nisbaynayaa jilib naxwata la yidhaahdo, laakiin cilmu naxwi loo nisbayn maayo. waxa uu ahaa nin hiqa buu ahaa, asxaabuulkutubi sittana waxbay u wariyeen. waxaanu dhintay 164 hijriga ayuu dhintay. abi isxaaq asabiici horaynu u soo marray. cikrima saas si leeg horaynu u soo marray, waa nin hiqoo xujo ah. asxaabuulkutubi sittana isagii abi isxaaqba waxbay u wariyeen. cabdullaahi bnu cabbaas baa cikrima ka warinaya. cikrima waa mawla bnu cabbaas weeye. halkaan isira dul taago. cikrima isagoo nin hiqa ah oo xujo ah oo taabiciintii ka mid ah oo ardaygii ibnu cabbaas ah oo cilmigii ibnu cabbaas ku duugan yahay, asxaabuulkutubi sittana dhammaan wax u wariyeen, baa waxaa lagu tuhmaystay inuu madhabulkhawaarij qabay. madhabta khawaarijta iyo ictiqaadka khawaarijta inuu ku sugnaa baa lagu tuhmay. waa qodob. waxaa kaloo la soo naqliyaa a'immada qaarkood inay yidhaahdeen kadaab buu ahaa. labadaa tuhumo mid walba beri buu ka ahaa. ta kadaabnimada culamo badan baa tawsiiqisay. marka waxa weeye takdiibka markaa la sheegayo waxa weeye waa mid markaa qalad ah oo aan markaa waxa sax ahayn, walacallahu cidda laga sheegayana inay ka sugnayn ayaa laga yaabaa. a'immo fara badan baan tawsiiqiya. asxaabuulkutubi sittana dhammaan waa xujaysteen, hadday labada saxiix tahay iyo hadday kutubaha kale tahayba. marka kadib waa ka dheeriye. qodobka labaada ku saabsan ictiqaadka khawaarijta ayuu mutaham ku ahaa oo markaa lagu sheegay inuu qabay, ilaa ay qaarkood soo naqliyeen oo yidhaahdeen mar buu masjidka albaabkiisa intuu istaagay ayuu wuxuu yidhi ruux gaala mooye ruux kaleba kuma jiro. laakiin waxyaalaha noocaasi ma sugnaa. waxyaalaha noocaasi waa tuham aan sugnayn. alxaafid ibnu xajar waa daafacaya fatxulbaariga fii kitaab alfitan, oo wuxuu ku daafacayaa xadiisuu soo wariyey oo isaguna uu ka daliishanaayo in fitanka laga dheeraado. cikrima uu ka daliishanaayo oo sawaadka fitanka aan la farabadin. xadiiskaa markuu sheegaya waa xadiis ku saabsan inay mu'miniintii qaarkood aynay soo hijroon wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ay maka ku sugnaadeen. dabeedna nimankii gaalada ahaa ayaa beder u soo kaxaystay. cikrima odhanaya
beder markay u soo kaxaysteen ee ay keeneen markaa beder ayaa waqtiyada qaarkood leeb baa markaa soo dhaca muslimiintu ay soo riday markaasaa deedna nimankii mid ka mida ku dhaca mu'miniintii markay ogaadeen bay waxay yidhahdeen walaalaha yagaanu dillay saasoo kale yidhahdeen dabeedna waxaa ku soo degtay aayaddii suuratu nisaa ina aladiina tawaffaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunna mustadcafiina fi alard alaaya aayaddaa iyo aayadda ka dambaysa ayaa soo degtay marka cikrima wuxuu ka daliishanayaa kolley wakhti hore ay ugu dambaysaye in fitanka aan sawaadkooda la badin aan fitnooyinka la raacin ayuu marka waxaa ka daliishanayaa mawduuca noocaas ah marka meeshaas ayuu kaga hadlayaa xaafid ibnu xajar fatxulbaariga waxaanu markaa sheegayaa isagoo marka waxa weeye fitankii muslimiinta yacni dhexdooda wakhtiyada qaarkood ka dhacay isagoo ka digaya ee dadka qaarkood ay madaxdii ku kaceen ay la dagaalameen yacni dulmi iyo wax intay tirsadeen markaa dabeedna uu markaa leeyahay yacni ka fogaada markaysa markaa fitankoo iska ilaaliya wuxuu odhanayaa markaa xaafid ibnu xajar hadal khulaasadiisa ama macnihiisu ahaa calaa maa adkuru yacni waxay caddaynaysaa qisadani shayga lagu tuhmaysto ah madhabulkhawaarij inuu qabay inuu beri ka ahaa aanu shaqo ku lahayn waayo hadduu markaa madhabulkhawaarij qabo waxaa ka dhalan lahayd dee khawaarijtu way la dagaalamayeen madaxdaas way la dagaalamayeen yacni wakhtigaa cikrimo jiray way la dirirayeen reer bani umaye iyo waa la dagaalamayeen waa la dirirayeen bal waana gaalaysiinayeen bale waxay gaalaysiiyeen dee saxaabadii bay qaarkood gaalaysiiyeen oo cusmaan ibnu cafaan iyo cali bin abi taalib baabay gaalaysiiyeen oo nebiga calayhi salaatu wasalaam shahaado ka haysta oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inay ahlu janno yihiin kuwaasay dayn waayeenee ma reer bani umayey dayn lahayn marka taasi waxay caddaynaysaa inuu waxa weeye markaa madhabta khawaarijta inuu beri ka ahaa marka calaa kulli xaal ruux cilmigii ibnu cabbaas ku duugan yahay oo cabdullaahi ibnu cabbaas u waxbaray oo ku farayaraystay yacni in markaa la yidhaahdo madhabulkhawaarij buu qabay waa arrin aad iyo aad u baciid ah tan noocaasna mid markaa la rumaysanayo ma aha cabdullaahi ibnu cabbaas xadiidka wuxuu ka warinaya abubakrin asidiiq buu ka warinaya can ibni cabbaasin qaala qaala abu bakrin yaa rasuula allahi qad shibta ibnu cabbaas wuxuu yidhi qaala abuu bakrin abuu bakar baa wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow qad shibta waad cirrowday ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ku yidhi qaala rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam shayabatnii huudun waalwaaqicatu waalmursalaatu cama yatasaa'aluun waida ashamsu kuwirat shayabatnii waxay cirraysiisay oo cirrada ii sababtay huudun suuratu huud iyo waalwaaqicatu suuratu alwaaqica waalmursalaatu iyo suuratu almursalaat wa cama yatasaa'aluun iyo suuradda cama yatasaa'aluun waida ashamsu kuwirat suuradaha ayaa i cirraysiiyey oo cirrada ii sababay riwaayaadka qaarkood oo ku siyaadinaya yacni xaaqa iyo ghaashiye iyo qaarica iyo sa'ala saa'il iyo iqhtarabat isaaca ku kordhinayaana waa jiraan oo qaarkood uu tabaraani soo wariyey qaar ibnu sacdi soo wariyey qaar ibnu mardaweyhi soo wariyey wahaakada xadiiskan waxaa soo wariyey tirmidina waa taxsiiniyo wuxuu yidhi xadiisku waa xasanun ghariib buu yidhi ha yeeshee a'immada qaarkood ayaa xadiiska cilleeyey oo yidhi waa mudarib waxaana ka mid ah abu xaatim arraazi oo kitaabka markaa cilalu xadiiska ee inankiisu qoray waxau odhanayaa aabbahay baan weydiiye o wuxuu sheegay inuu xadiiskani yahay yacni mid cillaysan uu yahay irsaalkana la arjaxay wakadalika daara qudni ayaa isaguna cilleeyey oo kitaabkiisa alcilal ayuu isaguna ku cilleeyey waxaanuu tilmaamay turuqiisa dhammaantood inay macluul yihiin kollay ikhtilaafaad badan baa ku dhacay oo marba laga dhigaayo mar mursal loo soo warinaayo mar mawsuul loo soo warinaayo mar laga dhigayo inuu markaa yahay min musnadi ibnu cabbaas mar laga dhigaayo inuu yahay musnad abi bakr marna abi bakr la xadfaayo musnadka ibnu cabbaas laga dhigaayo markii abu juxayfe laga dhigaayo mar mursalnimo loo soo warinayo adigu ikhtilaafaad badan ayaa markaa ku dhacay culamada qaar waxay dhahay ilaa 10 markaa waxaan yacni nooco ikhtilaafa ayaa xadiiska ku dhacay kan soo socdaana
waa isla noocan markaa weeye oo isaga Abu Juhayfa ayaa laga warinaya marka culimada qaarkood waa cileeyeen ha yeeshee bacdu ahli cilmi ayaa xadiiska quweeyey oo ka mid yahay Tirmidhi oo taxsiiniyey intuu jaamiciisa ku soo wariyey wakadalik waxa soo wariyey Xaakim oo isaguna waa saxiixiyey waxa kale oo soo wariyey Diyaa al-Maqdisi ayaa axaadiisul mukhtaara ku soo wariyey axaadiisul mukhtaara wuxuu ku soo wariyana agtiisa waxay ka tahay xadiis markaa jayid ah cala aqal oo xasana ayuu noqonaya ugu yaraan isaga agtiisa inuu xasan ka yahay ibnu daqiiq al-ciid ayaa isaguna markaa yidhi isnaadkiisu waa cala sharti al-Bukhaari wakadalika Xaakimna wuxuu yidhi waa cala sharti al-Bukhaari buu ku asaxay Albani laftiisu xadiiska waa saxiixinayaa oo waxa uu yacni tilmaamayaa turuqdiisa marka la isu geeyo inay iskabayaan oo waxa weeye irsaal iyo wasli baa la isugu khilaafay marka wasliga ayuu arjaxayaa maadaama uu shaahid kale u helay oo isaguna marka waxa mawsuulnimo yacni marka xadiisku uu ku yimi marka riwaayaadka qaarkood mursala iyo qaar waxa weeyaan mawsuula yacni waxa weeye marka la eego silsilatu axaadiis saxiixu ku soo aroorinaya waxaan odhanayaa yacni xadiisku wuxuu noqonayaa mid saabita oo saxiixa buu noqonaya culamada qaarkood waxay u tusaaleeyaan xadiiska mudaribka bay u tusaaleeyaan fanniga mustalaxul xadiiska ayay tusaale ka dhigaan kolley laakiin jamac culamada ka mida ayaa sidaas u quweeyey inkastoo a'immadii mutaqadimiinta qaarkood ay xadiiska cileeyeen xadiiskani wuxuu tilmaamayaa hadduu sugnaado wuxuu sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam in lagu yidhi waad cirrowday dabeedna uu yidhi cirrada waxay igu wacan oo ii sababtay suuratu huud iyo suuratulwaaqica iyo suuradaha kale ee uu sheegay bimacnaa suuradahaasaa cirrada ii sababay waxaa laga tilmaamayaa oo cirraysiiyey waa min baabi yacni isnaadi shay ilaa sababih shayga in loo tiirinaayo sababtiisii loo tiirinaayo suuradahana waxaa ku jira ama qiyaamadii oo laga warramayaa ku sugan iyo jannadii iyo naartii iyo qiyaamadii iyo dadku markaa meesha ay kala gelayaan suuratu huud baana lagu bilaabay riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku soo aroortay shayabatnii huudun wa akhawaatuha waxay cirraysiiyey suuratu huud iyo wa akhawaatuha walaaladeed bimacnaa suuradaha kale ee shabbahaya ee nadaa'irteeda ah akhawaadka waxaa laga tilmaamayaa suuradaha kale ee mawduuca ay ka warramayso suuratu huud oo kale suuradaha kale ka warramaya ayaa laga tilmaamaya saasaa laga tilmaamaya suuratu huudna waxaa ku sugan yacni qiyaamadii iyo jannadii iyo naartii in laga warramaayo waxaa kaloo ku sugan yacni markaa ummadihii hore qaarkood yacni markaa qasaskoodii iyo ashyaadoodii iyo caaqibadii ay ku dambeeyeen waxaa kaloo ku sugan yacni dadka markaa liibaanay iyo dadka ashqiyada ah iyo xaaladahooda iyadoo laga warramayo waxaa kaloo ku sugan amar markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la amrayo istiqaamada fastaqim kamaa umirt yacni ku toosnow sidii lagu amray yacni istiqaamo la mida amarka lagu amray toosnaan la mida ku toosnow marka taasuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam hadday ka sugnaado xadiisku inuu markaa cirrada ay u sababtay waxyaalaha cirrada sababana waxaa ka mid ah da'du iyaday jirto oo ay da'du ka mid tahay haddana markaa waxa weeye murugada ama badan ama hamiga badan ama waxyaalaha noocaas oo kale ama warwarka faraha badan leh waxay ka mid tahay waxyaalaha iyaguna cirrada ka qayb qaata oo soo dedejiya ayay markaa ka mid tahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa marka waxa weeye awsacu nnaasi sadran wuu farax badnaa yacni markaa waa murugo yaraa waa warwar yaraa waxa uu ahaa marka waxa weeye yacni mid markaa yacni yaqiintiisa iyo laabtiisu siday marka waxay u wanaagsan tahay aad iyo aad ay u fara badan tahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam farxadda iyo marka waxa firfircoonida iyo warwar la'aanta iyo yacni markaa kalsoonida qadarka uu ku kalsoonaayo ashyaadaas waa badnaayeen waxyaalahaasoo dhanna waxay ka mid tahay waxyaalaha yacni markaa cirrada dibdhigaya laakiin wuxuu tilmaamayaa midharhka yare cirrada ee markaa waxa weeye uu yeeshay in haddana yacni markaa qiyaamada iyo axwaasheeda iyo ashyaada noocaasa inay marka waxa weeye sabab ku leedahay ayaa markaa xadiisku marka uu tilmaamayaa oo uu sheegaya xadiiska 24aad
قال الإمام الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال قد شيبتني هود وأخواتها. سفيان بن وكيع horaynu soo aragnay waa nin daciif oo dacfa ku sugan xadiiskiisana waa la daciifiyaa haddii aanu helin wax kaloo lagu xoojiyo bal culamada qaarkood yani markaa dacfigiisa waaba ku xeel dheeraadeen tadciifka ay daciifinayaan laakiin waxaa loo badan yahay inaan dacfigiisu darnayn laakiin daciifu yahay caadi ah daciif jiddan aanu ahayn. maxamed ibnu bishrin waa nin hiqa oo xaafida weeye asxaabu lkutubi sittana waxbay wariyeen waa maxamed ibn bishrin alcabdiyu abu cabdillahi alkuufi waa nin hiqa oo xaafid ah asxaabu lkutubi sittana waxbay wariyeen. cali ibnu saalix waa cali ibnu saalix ibni saalix ibni xay alhamdani alkuufi waa nin hiqa oo caabid ah muslim iyo afarta asxaabu sunan baa wax wariyey. abi juxayfa waa saxaabigii weeye waxaana la odhan jiray wahb ibnu cabdillaahi assuwaa'i baa la odhan jiray kunyadiisu caan ku ahaa abu juxayfa la odhan jiray waxaanu markaa la saaxiibay oo bimacnaa waxa weeye uu ciidankiisa ka mid ahaa cali bn abi aalib radia allahu canhu ardaah radia allahu canhuma wuxuu dhintay 74 hijriga asxaabu lkutubi sittana waxbay wariyeen. marka sanadka xadiisku kale waa daciif laakiin waxa weeye sheekh albani ka hore maadaama marka uu quweeyey kanna waxa weeye waa ku sii quweynayaan isku mawduuc bay ku saabsan yihiin. abi juxayfa waxa uu yidhi wahb ibnu cabdillaahi assuwaa'i baa la odhan jiraye qaaluu yaa rasuula allahi naraaka qad shibta waxay yidhahdeen rasuulkii ilaahayow sala allahu alayh wasalam naraaka waxaanu ku aragnaa qad shibta xaal aad cirrowdaannu ku aragnaa. ru'yadu mar waxay noqotaa basariya aragtidii indhaha marna waxay noqotaa ru'yadu qalbiya oo aragtidii yacni qalbiga bimacnaa cilmi bay noqotaa. haddii loo fasiro ru'yadu inay cilmi tahay inay cilmiya tahay naraaka waxaanu kugu ogsoonnahay qad shibta inaad cirrowdaannu kugu ognahay oo kugu aqoonsannay marka qad shibta waxay noqonaysaa mafcuulkii labaad calaa haada. haddii la yahay ru'yadu waa basariya qad shibta waxay noqonaysaa jumla xaaliya waana sida fiican. naraaka waxaanu ku aragnaa qad shibta xaal aad cirrowdaanu ku aragnaa xaal qad shibta xaqiiqi aad cirrowday ayaannu ku aragnaa. qaala waxa uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qad shayabatnii huudun wa akhawaatuha waxay cirraysiisay suuratu huud iyo walaaladeed yacni walaaladeed waxaa loo jeedaa ay wa nadaa'iruhaa iyo suuradaha kale shabbahaya la midka ah ayaa cirrada iigu wacan oo ii sababay inaan cirroobo. marka calaa kulli xaal cirrada nebigu sala allahu alayh wasalam waa yarayd cirro badan nebigu ma yeelan cirro badan nebigu calayhi salaatu wasalaam ma yeelan. axaadiis kale oo kollay cirradaa ku saabsanna baabkan dambe ayuu inoogu keeni doonaa. xadiiska 43aad qaala imaamu tirmidiyu xadaثana caliy bnu xujrin qaala xadaثana shucayb bnu safwaana can cabdilmalik bni cumayr can iyaad bni laqiidin alcijliyi can abi rimsata ataymiyi tayma alribaabi qaala ataytu الnabiya salى allahu alayh wasalam wamaciya bnun lii alxadiisa. caliy bnu xujrin horaynu u soo maray shucayb ibnu safwaan waa inagu cusub yahay. shucayb ibnu safwaan xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa waa maqbuul buu odhanayaa. maqbuulna wuxuu u isticmaalaa xaafid ibnu xajar ay maqbuulun xaysu yutaabacu waila falayinu alxadiis marka uu mutaabaco helo cid kale ku raacdo ayuu maqbuul noqonayaa. haddii kale wuxuu noqonayaa xadiiskiisu miduu daciif yahay ayuu markaa noqonayaa. marka istilaaxa yacni caalimka istilaaxiisa waa loo xafidaa sidaa inuu maqbuul uga jeedana muqadimada taqriibka ayuu ku sheegay taqriibu tahdiibka muqadimadeeda ayuu ku sheegay. marka shucayb ibnu safwaan culammada qaarkood waxay yidhaahdeen sida ibnu cadiy oo kale caammatu maa yarwiihi laa yutaabacu calayh yacnii haalibka wuxuu soo wariyo mutaabaco ma helo oo cidi kuma raacdo isagaa la tafaruda isaga ayaa la keli noqda. marka waxa weeye calaa kulli xaal a'immada qaarkood waxay yidhaahdeen yuktabu xadiisuhu walaa yuxtaju bihi xadiiskiisa waa la qoraa ictibaar baa loo qoraa in lala baadho in wax kale loo helo laakiin lama xujaysto
imaam muslim saxiixiisa wuxuu ugu wariyey 2 xadiis buu ugu wariyey baajuriga wuxuu odhanayaa 1 xadiis buu ugu wariyey laakiin saxdu waxay tahay waa inuu 2 xadiis ugu wariyey imaam muslim kitaabkiisa saxiixa ah labadaa markaa xadiisa ugu wariyeyna istishhaadan buu ugu wariyey la ixtijaajan bihi inuu xujaysanayo uguma warin laakiin inuu istishhaadayo ayuu ugu wariyey waayo labada mid walba wuxuu keenay ariiq kale oo markaa waxa cid kale uu ka warinaayo ayuu markaa keenay ee keligii kuma kaaftoomin labada xadiis mid wuxuu ku saabsan yahay dajaal buu ku saabsan yahay iyo in nebi waliba ka digay dajaal iyo in wax markaa janno iyo naar oo kale ah inuu dajaal wato mid mawduucaasi ku saabsan yahay ka kalena wuxuu ku saabsan yahay almayitu yucadabu bibukaa'i ahlihi calayh marka labada mid walba wuxuu keenay iyadoo markaa Shucayb ibn Safwaan ka warinaayo ayuu ariiq kale keenay oo markaa waxa weeye Shucayb ka maran yahay ayuu markaa waxa mid walba soo arooriyey marka Shucayb ibn Safwaan dacfigaas asaa ugu jira Tirmidhi iyo Nasaa'ina waxbay u wariyeen Abdulmalik ibn Umayr waa nin thiqa ah laakiin markii dambe xifdigiisa tagayur baa ku dhacay isbedel baa ku yimi asxaabul kutub sittana waxbay u wariyeen dhammaantood marka badiba culimadu xadiiskiisa way quweeyaan oo waa saxiixiyaan allahumma illa inuu markaysaga mukhaalafo iyo wax la mida ay ka muuqato mooyaan oo cidka uu kale u khilaafo oo ka xoog badan iyaad ibn laqiid al-ijli waa nin thiqa weeyaan waxaana wax u wariyey muslim iyo abu daawuud iyo tirmidhi iyo nasaa'i bukhaari waxba uma warin marka xadiiska 2 taabici baa wax kala warinaya cabdulmalik ibn umayr iyo iyaad ibn laqiid labadoo 2 taabici weeye abi rimsata at-taymi waa saxaabigii weeye taymka loo nisbaynayaana waa tayma ribaab tayma iyo taymi labada waa loo dabdiyaa can abi rimsata wuxuu caan ku ahaa kunyadiisa wuu inoo keeni doonaa imaamu tirmidhi xadiis soo socda baabka kale inagu xiga xadiis ku sugan ayuu magaciisa markaa sheegi doonaa magaciisa waa la isku khilaafay magaciisa magaca aabihii siduu tirmidhi u qabo isaga inoo keeni doona laakiin wuxuu caan ku yahay waa la isku khilaafaa magaciise kunyadu caan ku yahay abi rimsata taymi ayuu caan ku ahaa taymka loo nisbaynayaana ma aha jilibkii quraysh ka mid ahaa ee taym la odhan jiray abubakar uu ka dhashay ma aha ee waa tayma ribaab marka tayma iyo taymi baa labadaba loo dabdiyaa tayma haddii la yidhaahdo la kordhigo waxay noqonaysaa acnii waxaan u jeedaa tayma ribaab oo ficilka acnii baa loo qadaraya marka tayma la kordhigo taymi marka la hoos dhigo culammada qaarkood waxay yidhaahdeen aniga markaa asalka samaacayagu waa jarkaan markaysaga ku maqallay oo ku soo warinay kitaabkane sida mulla cali alqaari wuxuu odhanayaa biljarri fii asli samaacina calaa haada waxay noqonaysaa in marka la yidhaahdo yacni taymi ribaab yacni lasii raacinayo ayay noqonaysaa ee ay tahay marka waxaway taabici marka ay tahay can abi rimsata abi rimsa wuxuu ka wariyey iyaad wuxuu ka wariyey abi rimsahaasoo attaymiyi taym loo nisbeeyey ka beddelo taymi ribaab loo nisbeeyey ama tayma ribaabi acnii waxaan u jeedaa tayma ribaabi baan u jeedaa taymkana waxaa la yidhi waa qolo taxaaluf samaysayoo 5 jilib baa isu yimi 5taa jilib oo kale ah dabba iyo sawr iyo cukli iyo taym iyo cadigu ma aha markaysaga qoladii markaa cumar ahaa ee quraysh ka mid ahaa maaha waa qolo kale dabeedna 5taasaa xulafoobay dabeedna marka waxa weeye subag la shiilay intii yarada hoosta isugu hadhay ee xantada noqotay intaa yar bay markaysaa gacmaha wada gashadeen yacni ribbi taasaa la yidhahdaa bay yidhahdeen waa suflu samni markay gacmaha wada gashadeen bay halkii ku xulafoobeen soomaalida qaar baa laga sheegi jiray markaa inay dee markay xulafoobayaan inay bun wada duban jireen dabeedna maalintay bunkaa wada dubtaanoo qolo walba loo mariyo dhakada loogu shubo wixii ka dambeeya ay yidhaahdaan markaa xulafaynunahay waa sidii oo kale ay shabbahdaa waa yahay qaala wuxuu idhi ataytu nabiya sala allahu alayh wasalam wuxuu idhi nabiga calayhi salaatu wasalaam baan u imi abi rimsa odhanaya
wa maciya ibnun lii waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u imi walxaal maciya aniga la jirkayga u ahaaday ibnun inan lii aniga ii sugnaaday qaala wuxuu yidhi abirimsaa odhanaya fa uriituhu nebiga calayhi salaatu wasalaam waa lay tusay oo waxaa laygu yidhi waa kaa yacnii caynta nebiga sala allahu alayh wasalam iyo muuqaalkiisa muu garanayn dabeed waa la tusay dabdiga waa laysku khilaafay mawdicanoo fa araytuhu iyo fa uriituhu baa labadaba loo xarakeeyey sida shuraaxda qaarkood ay sheegayaan fa uriituhu marka la yidhaahdo muqayaru siiqa laga dhigaye waa lay tusay nebiga calayhi salaatu wasalaamoo dadkii joogay meesha ayaa qaarkood i tuseenoo igu yidhaahdeen nebigii waa kaa yaa oo i garansiiyeen oo yidhaahdeen kaa weeye fa araytuhu marka loo dabdiyana waxay noqonaysaa waxaan tusay inankaygii baan tusay nebiga calayhi salaatu wasalaam saasay markaa noqonaysaa ay fa araytuhu libnii siday shuraaxda qaarkood tilmaamayaan waayahay fa uriituhu nebiga calayhi salaatu wasalaam waa lay tuso waxaa laygu yidhi waa kaa abirimsa odhanaya fa qultu waxaan idhi lammaa ra'aytuhu markii aan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam haadaa nabiyullaahi sala allahu calayh wasalam kani waa nebigii ilaahay ayaan idhi allah nebigiisii weeye ayaan idhi markaa sidan wuxuu odhanayaa tasdiiqu rumaynayo markii loo sheegay ayuu markaa rumaynayo sidan u odhanayaa ama inankiisu u sii sheegayaa uu leeyahay kaasi waa nebigii ilaahay calayhi salaatu wasalaam wa calayhi thawbaani akhdaraan waxaa nebiga lay tusay calayhi salaatu wasalaam walxaal calayhi nebiga calayhi salaatu wasalaam korkiisa ay ahaato ku sugnaatay thawbaani laba maro oo akhdaraani cagaaran laba maroo cagaaran iyadoo nebiga calayhi salaatu wasalaam korkiisa ay ku sugan yihiin ayaa lay tusay oo uriituhu yacni waxa weeye laga xaaleeyo ama ra'aytuhu laga xaaleeyo waxaan arkay faqultu lamaa ra'aytu hada nabiyullah waxaan arkay wa calayhi walxaal calayhi ay cala nabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga korkiisa ay ku sugan tahay thawbaani akhdaraan laba maroo cagaarani ay ku sugan yihiin walahu walxaal lahu nebigana ay u sugan tahay shacarun tima ay u sugan yihiin waqad calaahu shayb waxaa tima nebiga u sugan yihiin calayhi salaatu wasalaam walxaal qad calaahu uu ka korreeyo kor maray ashaybu ciradu shacarun baa waxaa la yidhi taqliil baa laga qaadanayaayo timahoo dhan loogama jeedee timo yar oo timihiisa ka mida ay shacarun min shacrihi timihiisa ka mida ayaa laga tilmaamayaa in waxa weeye marka ay ciroobeen marka macnuhu wuxuu u dhacaya walahu shacarun qaliilun yacni marka ayuu u dhacayaa waqad calaahu shaybu wa shaybuhu axmar yada oo wa shaybuhu ciradiisuna axmaru ay cas tahay casaan tahay xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo nasaa'i iyo tirmidina waa taxsiiniyey wakadalika imaam axmed baa soo wariyey xaakim baa soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey sheekh albaani laftiisuna xadiiska waxa weye waa saxiixinaya marka sanadka xadiiska kolley waxaa ku jira shucayb ibnu safwaan baa ku jira oo isagu marka aan qawi ahayn oo maqbuul marka uu xaafid ibnu xajar odhanaayo ha yeeshee lama keliyoobin waayo xadiisku wuxuu leeyahay turuq kaluu leeyahay oo mutaabacaad iyo shawaahid ayuu markaa leeyahay saas aawadeed lama keli noqon ee cid kale ayaa la soo warisay saas aawadeed lagu cillayn maayo wuxuu noqonayaa xadiisku markaa inuu sugan yahay buu markaa noqonaya xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu laba maroo cagaaran uu sitay labada marana waxaa laga tilmaamayaa waa miduu markaa guntan yahay iyo miduu markaa huwan yahoo degta sare u saaran ayaa laga tilmaamaya sidaas ayaa laga tilmaamayaa cagaarkuna waxa weeye midabka cagaarku waa dharka ahlu jannuhu midabka yihiin wayalbasuuna hiyaaban khudran yacni dhar cagaaran bay markaysa markaa xidhanayaan marka waxa weeye waa libaasu ahlijanna dharkooda midabkuu yahay weeye marka midabka cagaarku
inuu nabigu qaatay calayhi salaatu wasalaam midabka cagaarka inuu nabigu qaatay baa laga qaadanayaa xadiiska laga qaadanaya markan uu saxaabigu yidhi walahu shacarun waqad calaahu shayb wa shaybuhu axmar ujeeddadu ma aha inay cirradiisu fara badnayd ma aha waayo haddii la yidhahdo cirradiisu way badnayd waxay ka hor imanaysaa axaadiistii kale ka sixada badnayd bay ka hor imanaysa saxduna waxay tahay in markaa axaadiista la kulmiyo oo laysu keeno ayay markaa tahay marka waxaa laga tilmaamayaa timanka cirrada ah ee timihiisa ku sugnaa ayaa marka waxa weeye korreeyey baa laga tilmaamaya marka nebiga calayhi salaatu wasalaam cirradiisu ma badnayn midhadh bay ahayd xadiiskan haddaba wuxuu sheegayaa wa shaybuhu axmar cirradiisuna waa casayd cirradana waxaa la ogsoon yahay marka hore inay caddahay marka casaanka waxaa lays odhan karaa ma waxbuu mariyey oo wuu beddelay bal baabka soo socdaa kollay ku saabsan khidaabka iyo waxmarinta ku saabsan axaadiisna uu inoogu keeni doonaa marka horena waxaynu u soo aragnay xadiis tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu wakhti cirrada la xinneeyo inaanu gaadhin marka anas ibnu maalik oo khaadimkiisii ah oo nebiga calayhi salaatu wasalaam u shaqayn jiray 9 sano iyo dhowr bilood khaadimkii nebiga calayhi salaatu wasalaam aan ka faaruqaynay mar walba la joogay ee weheliyey ee la soconayey ee meel kula noolaa ee u adeegayey ayaa wuxuu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam timihiisa inaanu yacni markaa sibaaqayn inaanu waxba marin gooruu marka waxa weyaan cirrada beddelana inaanu gaadhin xadiiskaana horeynu soo aragnay marka culammada qaarkood waxay yidhaahdaan baabka soo socdana kolley waa ugu tegi doonnaayo waa kaga hadli doonnaa insha allahu tacaala axaadiista uu inoo keeni doonee cirradu markay timuhu cirroobayaan marka hore waa madow markay isbeddelayaan yaro casuus bay noqdaan kadibna caddaan bay isu beddelaan caddaanka marka casuus baa ka yaro horraysa culammada qaarkood waxay ku xambaareen casuustii caddaanka ka yaro horraynaysay in laga tilmaamaayo culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam xinno iyo wax la mida cirradiisa ma marine waxaa laga tilmaamayaa udgoonka uu ismarinayey ayaa markaa wakhtiyada qaarkood timuhu waxay u muuqanayeen sidii wax casuusi ku jirto oo kale ayay markaa u muuqanayeen axaadiista soo socota baabka soo socda insha allahu tacaala waa kaga hadli doonnaa waa ku arki doonnaa xadiiska 44aad qaala imaamu tirmidiyu xaddasanaa axmed ibnu maniic qaala xaddasanaa surayj ibnu nucmaan qaala xaddasanaa xamaad ibnu salama can simaak ibni xarbin qaala qiila lijaabir ibni samura akaana fii ra'si rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam shayb axmed ibnu maniic horaynu u soo aragnay surayj ibnu nucmaan waa surayj ibnu nucmaan ibnu marwaan weeye waa nin siqa ah marmar buu xaalaad naadira uu yacni ismoodsiiyaa bukhaari iyo afarta asxaabu sunan baa wax u weriyey muslim isagu waxa uma werin xamaad waa xamaad ibnu salama waa nin siqo oo caabida weeye asxaabu alkutubi sittana waxbay u wariyeen simaak ibnu xarbin way soo aragnay marka sanadka xadiisku waxa weeye waa qawi weeye culamada qaarkoodna waa saxiixiyeen imaamu tirmidina xadiiska waa soo wariyey jaamiciisu ku soo wariyey waana quweeyey imaam axmed baa isaguna soo wariyey xaakim baa soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey wakadalika bagawina isaguna waa saxiixiyey marka xadiisku wuxuu markaa isaguna ka warramayaa mawduucii hore aynu soo aragnay uu ka warramaya qaala qiila lijaabir ibnu samura waxaa lagu yidhi jaabir ibnu samura waxaa lagu yidhi akaana fii ra'si rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama shaybun ma waxaa ku sugnaa madaxa rasuulka sala allahu alayh wasalam ma ciraa ku sugnayd qaala wuxuu idhi lam yakun fii ra'si rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama shaybun ilaa shacaraatun fii mafriqih qaala wuxuu yidhi jaabir ibnu samura lam yakun ma ahayn fii ra'si rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam madaxa rasuulka mid ay ku sugantahay may ahayn shaybun ciro ilaa shacaraatun tima yar mooyaane oo fii mafriqih yacni ku sugan halka timaha uu ka kala jeexo ku sugan yacni timaha barhtankooda halka laga kala badho yacni ku sugan ida dahana markuu subkado waaraahunna duhnu waxaa qarin jiray
dufankaa qarin jiray. addahnu mise duhnu muxuu idin qoray daalka miyuu kordhigay mise waa addamu. adduhnu wuxuu noqonayaa waxa lagu subkanayuu noqonaya. ama addahnu hadduu noqon lahaa daalku inuu kordhigan yahay masdarkii buu noqon lahaa, yacni marka waxa weeye yacni subkidda ayuu noqon lahaa. ida dahana markuu subkado iddahana waxay noqonaysaa laazim bay noqonaysaa. ida dahana markuu subkado nebigu calayhi salaatu wasalaam oo madaxiisa uu subkaa loo jeedaa, waaraahunna waxaa qarin jiray midharhka cirrada ah adduhnu dufankaa uu ku subkadaa qarin jiray. yacni markay timihii qurux badnaadaan oo dhalaalaan ayaa tintinkii qarsoomayeen, yacni tintinkii baa qarsoomayeen. hadday cirradu badan tahay yacni markaa subkidda la subkay ma qarinayso, laakiin haddii cirradu yar tahay xoogaa waa qarinaysaa. yacni subkidda la subkay waa ma qarinaysaa, waayo waa wada dhalaalayaan oo kuwii madoobaa laftooda dhalaalaya. marka waxa weeye aragtida si fiican ugama booganayso titinka yacni markaa ku dhex jira ee cad. xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa isla mawduucii buu sheegayaa. horena waa u soo aragnay xadiis markaa sidanoo kale la macno ah. waxaanuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam midhadh yaroo cirri inay ku sugnayd. marka riwaayaadka qaarkood waxay sheegaysaa fii sudqayhi inay labada dhafoor kaga sugnayd, qaar waxay sheegaysaa canfaqada iyo garhka inay kaga sugnayd, qaar waxay sheegaysaa timanku inay kaga sugnaayeen timaha barhtankooda halka laga kala jeexo inay ku sugnaayeen. isma diidayso. waxaa laga tilmaamayaa meelba dhowr tin inay ku sugnaayeen baa laga soo qaadaya, oo timaha kale barhkoodana midhmidh baa ku sugnaa, dhafooradana midhmidh baa ku sugnaa. yacni marka canfaqada iyo marka waxa weeye halkan dibinta hoosteeda timaha yare ku yaalla iyo midhmidh marka waxa weeye garhka ku yaalla, intaasay ahaayeen. majmuuca marka la isu geeyana 20 may gaadhayn, 20 tin may gaadhaynin. marka taasna sidaas yada ah weeye. waana innagii soo sheegnay cirradu inay tahay nuurulmuslim, waa xadiiska sunanku tilmaamaayo laa tantifu shayb, cirrada ha rifina, fa innahu nuuru lmuslimi yowma alqiyaamah, waayo waa nuurka qofka muslimka ah maalinta qiyaame nuurkiisi weeye. marka ha rifinoo ha iska goynina. taasna waa ta sidaas yada ah xadiiska ay ku soo aroortay. waxaynu bilaabaynaa in sha allahu tacaala baabka 6, baabu maa jaa'a fii khidaabi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam, ay baabu bayaani maa kii caddayntiisa ayuu u baab yahay, ama baabu dikri maa kii sheegistiisu u baab yahay, jaa'a ku yimi fii khidaabi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam, beddelaadda nebigu calayhi salaatu wasalaam timaha madaxiisa uu beddelay ama sibaaqeeyey ama uu xinneeyey. erayga khidaab waxaa loo isticmaalaa asaalatan in laga tilmaamayo maa yukhdabu bihi wax lagu xinneeyo ama lagu midabeeyo. waxaana yidhaahdeen culammada qaarkood khidaabka waxaa loo jeedaa bimacna alkhadbi, oo macno masdar bay u fasireen, ee maa yukhdabu bihi umay fasirin. baabkana axaadiistiisu waxay u badan tahay inay ku saabsan tahay fi lkhadbi, yacni markaa xinnaynta ama beddelaadda timaha la beddelo ama la xinneeyo ama midabkooda la beddelo. laakiin waxa markaa lagu xinnaynayo axaadiista uu inoo soo aroorinaya uma badna. marka culamada qaarkood waxay yidhahdeen sida kitaab loo yidhaahdo macno masdar loogu fasiro oo kitaabka laga tilmaamayo bimacna alkatbi, macno kalena waa loo isticmaalaaye khidaabna waxaa loo jeedaa bimacna alkhadbi, oo xinnaynta ah ama midabaynta timaha la beddelo oo la midabeeyo, midab loo yeelo, xinno iyo wax la mida loogu yeelo. baabku saasuu ku saabsan yahay. xadiiska 45aad qaala imaamu tirmidiyu xaddasanaa axmed ibnu maniic qaala xaddasanaa hushaymun qaala xaddasanaa cabdulmalik ibnu cumayr can iyaad ibni laqiit qaala akhbaranii abu rimsata qaala ataytu nabiya sala allahu alayh wasalama maca bnin lii faqaala bnuka haada faqultu nacam. alxadiis. axmed ibnu maniic horaynu u soo marray. hushaym waa hushaym ibnu bashiir ibni qaasim alwaasiti, waa nin hiqa ah oo xujo ah weeye, ha yeeshee waa tadliis badnaa.
tadliiskana waxaa la yidhaahdaa raawigu ciduu wax ka wariyey oo wax ka maqlay xadiis aanu ka maqlin cibaaro loo fahmi karo inuu ka maqlay ama ka qaatay inuu kaga wariyo sida can oo kale kaga wariyo xadiiskaa khusuuskiisana kama maqal oo cancaneeyo xadiiskaana kama maqal marka waxaa la moodayaa inuu markaa xadiiskan toos uga qaatay meeshana cid baa ka maqan u dhaxayso waasita ah marka kasiiru tadliis buu ahaa mar baa nin sheekhi u yimi markaasuu hushaym wuxuu ku yidhi maanta waxaan doonayaa axaadiis inaad ii sheegto wada samaac ah oo aan innaba wax tadliisi ku jirin markaasuu axaadiistii u sardiyey wuxuu sameeyey raawigii uu ka maqlo mid kale ku cadfaa oo ku ladhaa markuu axaadiistii u dhammeeyey ayuu ku yidhi wax ma kuu tadliisiyey markaasuu maya samaac baad wada sheegtay markaasuu ka soo xigee samictu aan idhi ama xaddasanii waa samaacaas weeye laakiin ka kale aan ku lifaaqay aan ku cadfay aan idhi waa fulaan kaa kale isaga kama maqal halkaasaa tadliisu ku jira marka waxaa la wuxuu ahaa kasiiru tadliis laakiin nin hiqo oo xuja'a buu ahaa asxaabuulkutubi sittana waxbay wariyeen wuxuu dhintay 183 hijriga ayuu dhintay magaciisu waa hushaym bitasghiir laakiin aabbihii waa mukabbar waa bashiir ee bushayr maaha wuxuu ka warinayaa xadiiska uu ka maqlay hadda wuxuu sheegayaa taxdiis buu caddaynayaaye ma tadliisin kane cabdulmalik ibnu cumayr waa nin hiqa ah oo taabiciintii ka mid ah asxaabuulkutubi sittana waxbay u wariyeen wuxuu isna ka sii warinayaa iyaad ibnu laqiid horena way u soo marray cabdulmalik ibnu cumayr iyaad ibnu laqiid buu ka warinayaa isagana waa soo marnay isna waa nin hiqa ah oo taabiciintii ka mid ah bukhaari adabulmufradku wax ugu wariyey muslim saxiixiisu wax ugu wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'ina sunanadooda wax ugu wariyeen ibnu maajah iyo bukhaari saxiixa waxba uma warin ibnu maajahna waxba uma warin waa riwaayatu taabiciyin can taabiciyin laba taabici baa wax kala warinaya marka xadiiska sanadkiisu waa saxiix jamac culammada ka midna waa saxiixiyeen waxaa kaloo tirmidi la soo wariyey abu daawuud iyo nasaa'i iyo imaam axmed iyo ibnu khusayma iyo ibnu jaaruud iyo ibnu xibbaan iyo xaakim intaasi waa la soo wariyeen marka ibnu khusayma waa saxiixinaya ibnu jaaruud waa saxiixinaya xaakim waa saxiixinaya ibnu xibbaan waa saxiixinaya wahaakada iyaad ibnu laqiid wuxuu yidhi akhbaranii abuu rimsata waxaa ii warramay abuu rimse ayaa ii warramay waa saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam ka mida wuxuu ku caan yahay kunyadiisa qaala wuxuu yidhi ataytu nabiya sala allahu alayh wasalam wuxuu abuu rimse yidhi waxaan u imi nebiga calayhi salaatu wasalaam baan u imi maca bnin lii waxaan ula imi inan markaa la jirkii inankaasoo lii aniga ii sugnaaday faqaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ibnuka haada ma inankaagii baa kani ibnukaa la soo hormariyey markaa siiqadu waxay u eg tahay kaannahu in la yidhi inankaagii makanba yacni saasoo kale macnuhu u dhacay taasna waxay ka iman kartaa marka uu ogaa inuu inan leeyahay laakiin caynta inankiisa aanu garanayn taasaa ka iman karta haddii nusakha qaarkood ama riwaayaadka qaar ay ugu timi abnuka haada oo hamsada qaci laga dhigo waxay noqonaysaa hamsatul istifhaamkii inay joogto laakiin sida markaa inoo qoran ama nusakha marka ay ka sheegeen culammadu waa in hamsadu maqan tahay ibnuka haada ay abnuka haada baa macnuhu dhacaya ibnuka odhan maysa haddaad qadarto waayo hamsada ugu horraysa waa hamsatu waslinoo hamsatul waslina haddaan hadalka laga bilaabayn lama akhriyo qalad weeye waxaa la akhriyaa un keliya marka laga bilaabaayo laakiin hamsada istifhaamku waa hamsatu qaci weeye marka asalku wuxuu ahaa ahaada bnuk kani ma inankaagiiba maxallul istifhaamku wuxuu ku dhacayaa khabarka laakiin marka la soo hormariyey siiqadu waxay u ekaanaysaa kaannahu inuu ogaa inan marka inan leeyahay oo uu leeyahay inankaagii makanba faqultu nacam abuu rimsa saxaabiga la yidhahda wuxuu ku jawaabay waxaan idhi buu yidhi nacam haa nacamna luqaad baa iskaga bannaan nacam iyo nacim iyo nicim waa 3 luqoo fasiixa in markaa nuunka iyo caynka labadaba la kordhigo in labadaba la hoos dhigo in waxa weeye ka hore la kordhigo caynkana la hoos dhigo waa 3 luqoo fasiixa ashhadu bihi waan ka markhaati kacayaa bimacnaa waa qirayaa inuu markaa inankaygi yahay halkan dabdiga waa la ysku khilaafo ishhad bihi iyo ashhadu bihi labadaba waa loo xarakeeyey
ishhad bihi haddii loo xarakeeyo shuraaxda qaarkood way sheegayaane waxay noqonaysaa inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ku leeyahay ishhad ka markhaati noqo bihi inankan inuu inankaygi yahay sidaa markhaati ka noqo waa dalabuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka dalbaayo ayay noqonaysa odhan mayno siday shuraaxda qaarkood yidhaahdeen waa amar waxaynu leenahay ta'aduban waa dalabuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka dalbaayo ta'aduban baynu saa u leenahay ashhadu bihi marka la yidhaahdo oo mudaaric laga dhigo waxay noqonaysaa waan qirayaa waan ka markhaati kacayaa bimacnaa waa qirayaa inuu inankaygii yahay macnuhu saasuu u dhacaya qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laa yajni calayka walaa tajni calayh laa yajni calayka korkaaga kuma gaboodfalaayo bimacnaa jinaayadiisa iyo gaboodfalkiisa iyo wuxuu dhimo adiga lagu qabsan maayo hadduu wax geysto dembiguu geystay iyo gaboodfalkuu geystay adiga lagu qabsan maayo walaa tajni calayhi adigana waxaad geysato gaboodfala ama jinaayo ah ama dembi ah isaga loo qabsan maayo qaala wuxuu yidhi abuu rimtha wa ra'aytu shayba axmar waxaanan arkay buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam cirradiisu iyadoo cas baan arkay oo ay cas tahay ayaan arkay riwaayaadka qaarkood baa waxay kordhinayaan wa shaybuhu axmaru makhduubun bilxinnaa iyadoo cirradiisuna ay cas tahay oo lagu dharoobay ama lagu beddelay xinno lagu beddelay riwaayaadka qaarkood baa sidaas yadaa ku soo arooray qaala abuu ciisa waa tirmidi kunyadiisa weeyaane abuu ciisa wuxuu yidhi wuxuu kunyada u sheegayaa inuu kunyada ku caannimo badnaa oo aad kunyadiisu u caan ahayd waana dhacdaa haddii markaa kunyadu ay ka caannimo badan tahay isimka in kunyada la sheegto shuraaxda qaarkood waxay markaa banneeyeen weji kaloo ah in ardaydu marka ay yidhaahdeen ardaydii tirmidi iyo ruwaaddii wax ka warinaayey qaala abuu ciisa iyagu inay yidhaahdeen laakiin sida markaa fiicani waa wejiga hore oo waa inuu isagu odhanaayo qaala abuu ciisa hada axsanu shayin ru'ya fii hada albaab haadaa kani xadiiskani axsanu shayin waa shaykii ugu wanaagga badnaa shaygaasoo ruwiya la soo wariyey fii hada albaabi baabkan gudihiisa lagu soo wariyey yacni beddelaadda nebigu calayhi salaatu wasalaam cirradiisa markaa inuu ku beddelay xinne ama wax la mid ah ama timaha cirradiisu inay casaayeen waa shayga ugu wanaagga badan ee baabkaa lagu soo wariyey baabku waa baabka xadiisku ku saabsan yahay wa afsaru waana shayga ugu caddaanta badan afsaru waxaa loo jeedaa min atafsiir oo kale weeye oo waxaa laga tilmaamayaa waa inuu ugu caddaan badan yaho baabka uu ku cad yahay lianna ariwaayaati asaxiixata annahu sala allahu calayhi waaalih wasalama lam yablugh ashayb sababtuna waxay tahay tirmidi baa odhanaya riwaayadaha saxiixa ahi iyo axaadiista saxiixada ahi waxay sheegaysaa annahu sala allahu calayhi waaalih wasalam in nebigu calayhi salaatu wasalaam lam yablugh ashayba cirrada inaanu gaadhin yacni wakhti cirradu ku badato oo uu xinno u baahdo uu xinneeyo inaanu gaadhin ayaa axaadiista saxiixada ahi ku soo arooreen lianna riwaayaatii saxiixa riwaayadaha saxiixa iyo axaadiista saxiixa waxay ku soo arooreen inaan nebigu calayhi salaatu wasalaam cirrada aanu gaadhin siyaaqa hadalkiisa waxaa laga fahmayaa inuu leeyahay tani saxiixa ma aha oo waxa weeye waxa ka sixo badan riwaayaadka kale ayaa saxiixo ah riwaayadanna markaysagaa shay baa ku jira ama nowcan maa waxbaa ku sugan oo raawigu xataa hadduu khilaafo cid ka siqannimo badan dee wakhtiyada qaarkood waa la daciifiyaayo dee shaad marka la sheegayo maxaa looga jeedaa mukhaalafatu asiqati aw asaduuqi liman huwa awsaqu minhu marka ninka siqadee lagu kalsoon yahay ama saduuqee runsheegidda badani uu khilaafo liman huwa awsaqu minhu cid ka siqannimo badan shaad baa la yidhahdaa cidda siqannimada badan ee lagu kalsoonida badan yahay siday soo wariyeen baa la ictimaadaa la cuskadaa sida laga xoogga badan yahayna waa laga tagaa shuduudkuna waxyaalaha wax lagu daciifiye ka mid tahay waxyaalaha wax lagu daciifiyo ayay markaa ka mid tahay haddaba markuu yidhi haada axsanu shayin ruwiya fii hada albaabi wa afsar ma faa'iidaynayso inuu leeyahay waxa weeye waa saxiixo oo inuu saxiixinaayo ka dhalan mayso kama laasimayso ilaaba ilaa waayo marka la yidhahdo waa asaxu shayin fi lbaab
tirmidi aad baa buu isticmaalaaye wakhtiyada qaarkood axaadiista qaar buu ka hadlaa sanadkeeda oo uu yidhahdaa sanadku dacfiga noocaasaa ku jira ama ninka noocaasaa ku jira oo intuu wax ka sheego waxaasoo keensanaya tadciif ayuu dabeedna markaa wuxuu yidhaahdaa wa huwa asaxu shayin fi lbaab waa waxa ugu sixannimada badan ee baabka ku yimi marka isma diidayso in sanadkii la daciifiyo laga hadlo haddana la yidhahdo wa asaxu shayin fi lbaab waayo baabkaasuu ugu sixo badan yaha laga tilmaamayaa baabkanna hadda waxaa loo jeedaa nebigu calayhi salaatu wasalaam cirradiisii inuu xinneeyo beddelay oo wax markaa midab u samaynaya ku beddelay baabku u jeedaa waa baabkaas weeye lam yabluq shaybana waxaa loo jeedaa cirro badan ma gaadhin baa laga tilmaamaya imaamu nawowi laftiisu wuxuu yidhi cibaarada markaa ah asaxu shayin kama laasimayso sixatu alxadiis oo isagoo xadiisku daciifa dhacda in marka la yahay wa asaxu maa fi lbaab kutubul mustalaxna culammadu waa ku sheegaan oo masalada noocaasa waa ku taqriiriyaan oo kutubta mustalaxu waa miday markaa qoraan waayo waxaa laga tilmaamayaa isbaatu alasaxiyati laa isbaatu asixati asaxiya la sugayaa ee sixa la sugi maayo yacni farqa u dhexeeya alasaxiya iyo asixa haddii baabka waxa ku soo arooray wada daciif yihiin oo mid xagga sixada ugu dhowaansho badan yahay ama uu isagu habeen xigo oo kuwa kale xagga sixada uga yaro dhow yahay wa in kaana daciifan waxaa la odhanaya waa asaxu shayin fi lbaab asaxu shayin fi lbaab ayaa la odhanaya misaal aan soo qabto haddii la yidhaahdo laba oday oo markaa gebgaboobay oo cimrulghaalibkii dhaafay oo da'doodu markaa ay aad u weyn tahay hebel iyo hebel kee yar aad tidhahdo fulaanun asqaru min fulaan hebel waa ka yar yahay hebel ma waxaad u sugtay inuu sagiir yahay oo yar yahay miyaad u sugtay maya waxaa laga tilmaamayaa kan kaluu ka waabsay oo xagga siqarka uu ka yaro xigaa ama uga dhow yahay laakiin labada midna sagiir ma aha mid waliba waa kabiir cumrulghaalibkiina waa dhaafay fulaanun asqaru min fulaan wa isbaatu alasghariyati laa isbaatu asiqar asqarinimada la sugayaayo xagga siqarku ka habeen xigaaba laga tilmaamayaaye loogama jeedo in siqar la sugaayo asaxu shayin fi lbaabna muraadka looga jeedo waa saas waa isbaatu alasaxiya laa isbaatu asixa marka baabka waxa ku soo arooray hadday wada daciif yihiin waxaa laga tilmaamayaa isaga arjax uga ah oo ugu roon muraadku waa saas alimaamu tirmidi waxau yidhi waa abuu rimsata abuu rimso waa saxaabiga ismuhu rifaacatu bnu yasrabiyin attaymiyu rifaaca magiciisa la yidhaahdaa ina yasribi baanu ahaa magaciisa waa la ysku khilaafaa iyo magaca aabbihii mid walba aqwaal bayna culammadu ka yidhaahdaan laakiin imaamu tirmidi wuxuu doortay oo isagu markaa ku tegay ikhtiyaarkiisa in magaciisa loodhan jiray rifaaca loodhan jiray laakiin asmaa kalena culammadu waa sheegeen yasribina magicii aabbihii ma sheegin yacni markaa imaamu tirmidi rifaaca aabbihii magacu lahaa ma sheegin ee nisbadiisii buu sheegay oo wuxuu ka tilmaamayaa waa mansuubun ilaa yasrib baa loo nisbeeyey yasribna waa ismu min asmaa'i almadiina fi aljaahiliya waa magacyadii madiine ka mida wakhtigii jaahiliyada lagu magacaabi jiray laakiin markii dambe waa markaa la karaahiyaystay in lagu magacaabo yaa ahla yasriba laa muqaama lakum yacni munaafiqiintii baa odhanayay saas aawoodee waxaa ku soo arooray xadiis sanadkiisu daciif yahay oo tilmaamaya yacni inaan madiine lagu odhan yasrib lagu odhan aayaddana waxaa laynoo sheegay cidda sidaa odhanaysay inay munaafiqiintii ahayd saasaa laynagu sheegay marka yasribiyin waxaa loo jeedaa waa mid yasrib loo nisbeeyaa laga tilmaamaya oo attaymiyi taymna loo nisbeeyey taymkuna waa taymu ribaab sidaynu xadiiskii hore ku soo aragnay waa yahay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa abuu rimsa inaanu dhalay inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ula yimi oo ay u wada yimaadeen kadibna nebigu uu su'aalay calayhi salaatu wasalaam oo yidhi ma inankaagiibaa dabeedna uu yidhi haa uuna yidhi waxa weeye waa ka markhaati kacayaa bimacnaa saa waa qiraya riwaayaadka qaarkood baa waxaa ku soo arooray in waxa weeye hadalka laba goor lagu celiyey su'aasha dabeedna ictibaarkaa uu sidaas yadaa u yidhi yacni marka ashhadu bihi oo sidaa uu yidhi nebigu wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam
inaan midna ka kale wuxuu geysto inaan loo qabsanayn laa fi dunya walaa fi alaakhira ama innahu laa yajni calayka walaa tajni calayh yacni qof walba dembigiisa isagaa la gaara qaacidadii jaahiliyada ama gaaladu ay isticmaali jireen oo aanada ahayd sharcigu waa dumiyey allah wuxuu yidhi walaa taziru waasiratun wisra ukhraa nafna naf kale dembigeeda xambaari mayso naf walba dembigeeda ayaa markaa laga abaalmarinayaa nafna naf kale dembigeed loo qabsan maayo marka qaacidadii jaahiliyada ee aanada ahayd sharcigu saasuu u dumiyey marka qof walba isagaa la gaara dembigiisa iyo jinaayadiisa la gaara mawdicu shaahid wuxuu u keenay wara'aytu shayba axmar cirrada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan arkay inay cas tahay marka waxa weeye bal axaadiista kale hadda mawduuca ku saabsan bal yadana aan la akhrinno markaasaynu tacliiqin doonnaa in sha allahu tacaala xadiiska 46aad qaala imaamu tirmidiyu xaddasanaa sufyaan bnu wakiicin qaala xaddasanaa abi can shariikin can cuhmaana bni mawhabin qaala su'ila abu hurayrata hal khadaba rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam qaala nacam sufyaan ibnu wakiic horaynu usoo aragnay waa nin daciifa waxaanu dhalay imaamkii weynaaye wakiic ibnuljarax ayaa dhalay isagana waa soo marray shariik laftiisa waa soo marray isaga laftiisa waa soo aragnay waxaa inagu cusub keliya sanadka waxaa inagu cusub cuhmaan ibnu mawhab baa inagu cusub cuhmaan ibnu mawhabna waa nisba ila aljad waa cuhmaan ibnu cabdillaahi ibni mawhab sida tirmidi laftiisuba caddayn doono oo tirmidi baa sheegi doona qaala abu ciisa wa rawaa abu cawaanata hada alxadiisa can cuhmaana bni cabdillaahi ibni mawhab marka wakhtiyada qaarkood baa awowgii loo nisbeeyaa oo cuhmaan ibni mawhab la yidhaahdaa laakiin waa cuhmaan ibni cabdillaahi ibni mawhab mawhabna haadu waa kor dhigan tahay waa nin madani ah oo reer madiine ah waxaana walaa uu la lahaa markaysagaa reer taym wuxuu ahaa nin siqoo lagu kalsoon yahay asxaabuulkutubi sittana waxbay u wariyeen marka laga reebo abu daawuud keliya baan waxba u warin inta kale waxbay u wariyeen waxaa jira nin la magaca oo cuhmaan ibnu mawhab la yidhaahdo oo isaga aabbihii mawhab yahay anas baanu wax ka wariyaa kaa ayaan lagu qaldin kan iyo kaasi waa kala duwan yihiin kaas nasaa'i keliya ayaa camalulyowm walleyla wax ugu wariyey kutubta kaleoo dhan waxba looguma warin mawhabna isaga waa aabbihii awowgii ma aha xagga dabaqadana isku dabaqa maaha cuhmaan ibnu mawhab waxa uu yidhi sanadku waa daciif oo dee kollay markaa sufyaan ibnu wakiic oo daciifa iyo shariika oo isagana dacfi ku sugan yahay oo ama cinda tafarud ama cinda almukhaalafa la daciifinaayo ayaa markaas soo wariyey marka sanadkani waa daciif laakiin dee shawaahid markaa la macnaa baa jirta mar labaadkana waxaa mukhaalafa ku suganoo yacni cid ka siqannimo badan ayaa markaa waxaa khilaaftay oo xadiiska ka dhigtay inuu markaa musnadka abu hurayre aanu ahayn ee musnadka ummu salama uu yahay tirmidina waa ishaari doonaa can cuhmaana bni mawhabin qaala wuxuu uhi su'ila abu hurayrata abu hurayra la weydiiyey hal khadaba rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay timihiisa ma xinneeyey oo dee wax ma ku dharoobo ma mariyey xinno iyo wax la mida qaala wuxuu yidhi abu hurayra nacam haa qaala abu ciisa tirmidi waxauu yidhi wa rawaa abu cawaanata abu cawaana waa soo wariyey hada alxadiisa xadiiskan buu soo wariyey can cuhmaana bni cabdillaahi ibni mawhab cuhmaan ibni cabdillaahi ibni mawhab buu ka soo wariyey faqaala wuxuu yidhi can ummi salama inuu cuhmaan ka warinaayo ummu salama ayuu markaa u sheegay marka riwaayada marka abi cawaana yaynan helinbe laakiin cid kaleoo cuhmaan ka warinaysaa oo musnadka ummu salame ka yeelaysa xadiiska ayaa la hayaa oo bukhaari baa saxiixiisa wuxuu ku soo wariyey iyo imaam axmed musnadkiisa iyo ibnu maajah sunankiisa min dariiqi marka waxa weeye ibni abi mutiic isagoo ka warinaya can cuhmaan ibni mawhab qaala dakhaltu calaa ummi salama qaala faakhrajat ilaya shacran min shacri rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam makhduuban bilxinnaa'i waalkatam yacni bukhaari baaba saxiixa ku soo wariyey iyadoo cuhmaan ibnu mawhab uu ka warinaayo ummu salama oo uu leeyahay ummu salamaan u soo galay waa mar dambe oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyooday ka dambaysa ummu salamaan u soo galay buu yidhi
zawji nabiy sala allahu alayh wasalam markaasaa waxay ii soo bixisay buu yidhi timo ka mida timihii nebiga calayhi salaatu wasalaam timo ka miday haysay bay ii soo saartay timahaasoo makhduuban bilxinnaa'i waalkatam yacni markaa lagu dharoobay ama la mariyey ama lagu beddelay xinno iyo katam lagu beddelay bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxay aqbali kartaa maadaama wakhtigani wakhti dambe ahaa in waxa weeye markuu nebigu geeriyooday dabadeed calayhi salaatu wasalaam inay iyagu markaa xinnaha iyo katamka mariyeen si ay ugu xafidaan oo ugu ilaaliyaan ee wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam in timaha nebiga midharka ciroobay inay xinno iyo katam lahaayeen kama cadda ee maadaama markaa axaadiis saxiixa oo nafyinaysa la hayo waxay aqbali kartaa timahan ay haysay ummu salama ee nebiga calayhi salaatu wasalaam timihiisii ka mid ahaa ee xinnihiiyo katamka lahaa mar dambe in la mariyey oo bacda wafaati rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam markii nebiga la oofsaday dabadeed in la mariyey marka sidaas ayay aqbali kartaa bacdu ahlicilmi yidhaahdeen calaa kulli xaal culammada qaarkood oo dee jamciyaana waa jiraan oo yidhaahdo waxa weeye waxaa lagu jamcinayaa marar markaa naadira inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xinneeyey bacdu ahlicilmi oo weji labaad yidhaahdana waa jiraan oo yidhaahda nebigu marka waxa weeye xinno ma marine waxaa laga tilmaamayaa in waxa weeye duhnigii badnaa ama markaysaa waxaan yacni waxyaalihii udgoonka ahay ee uu marin jiray waxyaalahaasi inay beddeleen laakiin riwaayadu waxay ku caddahay tani makhduuban bilxinnaa'i waalkatam marka wejiga hore haddaan la odhan yacni waxa weeye xoogaa bucdaa ku jira in la yidhaahdo waxa weeye xinno iyo katam may ahayn oo dee waxaa ka imanaysa dee waxa weye isaga ismoodsiiyey yacni marka ayaa ka imanaysa marka mar kastoo la tawjiihin karana way ka fiican tahay in markaa raawiga lagu wahmi xukmiyo waa yahay marka maadaama xadiiskan wax la macni ay jiraan culammada qaarkood waa saxiixiyeen laakiin sanadkiisu calaa kulli xaal waa daciif sheekh albaanina wuxuu ka mid yahay qolyaha saxiixiyey laakiin wuxuu u jeedaa waa saxiixu lighayri baabka waxa kale ku soo arooray baa saxiixinayuu marka uga jeeda xadiiska 74aad qaala imaamu tirmidiy xadathana ibraahim ibnu haaruun qaala xadathana nadr bnu zuraara can abi janaabin can iyaad bni laqiitin can iljahdamati imra'ati bashiir bni alkhasaasiya qaalat ana ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yakhruju min beyti yanfudu ra'sahu waqad ightasal wa bira'sihi radcun min xinnaa xadiiska ruwaadda soo warinaysa ibraahim ibnu haaruun waa inagu cusub yahay waa ibraahim ibnu haaruun albalakhi weeye nin caabidu ahaa cibaado badan nin saduuquuna ahaa oo run badan oo run sheegid badan waxaa wax u wariyey tirmidi fi shamaa'il iyo nasaa'i ayaa wax u wariyey kutubaha kale lixda ah waxba looguma warin tirmidina shamaa'ilka keliya ayuu wax ugu wariyey asxaabuulkutubi sittana shakhsi kale oo ibraahim ibnu haaruun la yidhaahdo isaga aan ahayni kuma jiro annadr ibnu zuraara zuraara za'du waa godan tahay waa annadr ibnu zuraara ibni cabdilakram alkuufi waa nin mastuura weeye oo caddaaladdiisa nin la isbaatiyo la sugay ma aha siqannimadiisa iyo caddaaladdiisa inay sugantahay ma aha waa mastuurulxaal xaalkiisa iyo caddaaladdiisu waa mid ay asturan tahay saas aawadeed xadiiskiisa la quwayn maayo ilaa markaa wax kaloo xoojiya loo helo tirmidi baa shamaa'ilka wax ugu wariyey jaamiciisana waxba uguma warin asxaabuulkutubi sitta kalena waxba uma warin annadri iyo nasri markay culammadu kala sheegayaan waxay yidhaahdaan magacu hadduu al leeyahay ruwaadda haddaad ku aragto magac al leh oo sidaa u qoran annasru ma ahe waa annadru haddaad aragto isagoo bilaa al ah aan al lahayn ou sidaa u qoran yahay waa nasrune nadrun ma aha meeshuu kaaga soo baxa waa saas haddaad aragto yacni asxaabuulkutubi sitta waxay markaa wax u wariyaan oo dhan haddaad aragto isagoo al leh waa annadru ila dhibicdu waa ka dhici kartaa qaacida ahaan saasaa la yidhahdaa waa yahay abijanaab jiinku waa kor dhigan yahay kunyadiisaa sidaasa magaciisana waxaa la odhan jiray yaxya ibni abi xayah ayaa la odhan jiray kunyadaanu caan ku yahay culammadu waa daciifiyeenoo aad buu tadliis badnaa markaa sida tadliiskiisu aadka ugu fara badnaa daraaddeed
bay culammadu u daciifiyeen kollay sida kalena mala dacfa ugu jiray way daciifiyaan culammadu labada saxiix waxba looguma warin abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah ayaa wax u wariyey bes iyaad ibnu laqiid horeynu u soo aragnay jahdama waxa weeye waa saxaabiyad weeye saxaabigii bashiir ibnulkhasaasiya ayaana qabay oo haweenaydiisa ay ahayd alkhasaasiyana ya'da la shadi maayo waa mukhafafa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa sida tawaaciya iyo karaahiya iyadoo marka waxa weeye ya'daasoo kale shadan tahayna luqada carbeed kuma sugna jahdama waxaa inoo qoran bidaali almucjama laakiin sida markaa kutubu rijaalku qorayaan sida taqriibkaoo kale waa jahdama waa bidaali almuhmala laakiin hadda waxaa inoo qoran jahdama waxaa laga yaabaa calaa kulli xaal in laysku khilaafay dabdigeeda ma bidaali ba mise waa bidaali kolay laakiin kutubta rijaalka sida taqriibkaoo kale wuxuu qorayaa in daalku aanu dhibic lahayn haakada xadiidka sanadkiisu waa daciif oo waxaa ku sugan annadr ibnu zuraara iyo abi janaab baa labaduba lagu daciifinaya waa daciif sanad weeyaan laakiin waxbuu ka waafaqayaa axaadiistii aynu soo aragnay qaarkood jahdama waxay tidhi qaalat waxay tidhi ana ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam anigu waxaan arkay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam yakhruju min beytih xaal uu gurigiisa ka soo baxaayo ayaan arkay waxaan arkay yanfudu ra'sahu madaxiisa isagoo biyaha ka daadinayaan arkay waqad iqtasala wuxuu biyaha ka daadinayay madaxiisa walxaal qad iqtasala u maydhay ayuu madaxiisa biyaha ka daadinayey wa bira'sihi radcun min xinnaa madaxiisana waxaa ku sugnaa radcun in yar baa ku sugnayd oo min xinnaa'in xinna ah yacnii raad xinna ah yacni waxay u jeeddaa asarkii iyo raadkii xinnuhu lahaa in yar oo ka mida ku sugnayd maaha daatadii xinnaha ayaa markaa ku sugnayd kama tilmaamayso waxay u jeeddaa raadkiisi aw qaala ama waxa uu yidhi raawiga soo wariyey waa ibraahiime radqun yacni ama radqun buu yidhi ama radcun waa shakun min arraawi macayn bay ahayd mise kayn radcun mise radqun aw qaala ama wuxuu yidhi radqun ay radqun min xinnaa in yaroo xinno ah ayaa ku sugnayd oo raad xinno ah yacni wax badan may ahayn wax yar bay ahayd waxa ku sugnaa culammada qaarkood way kala farqiyaan radqun iyo radcun waxay yidhahdeen culammada qaarkood radqun haddii la yidhaahdo waxaa loo isticmaalaa raadka zacfaraanka markay tahay in yar oo zacfaraan ah laakiin radcun marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa in yaroo sibaaqun bay noqonaysaa saasay noqonaysaa laakiin calaa kulli xaal waxay culammada qaarkood sheegeen halkan inay ku saxan tahay in la yidhaahdo radcun in la yidhaahdo inay ku saxan tahay qastallaani wuxuu odhanayaa qastallaani laamku waa shidan yahay badiba culammaduna qaafka waa kordhigaan culammada qaarkooda u dabdiyeyna waa jiraan qustallaani yacni markaa u dabdiyeyna waa jiraan laakiin waxay u badiyaan qastallaani inay markaa ay tahay bay u badiyaan laakiin qaar baa goday qaafka aan badnayn laakiin tashdiidka laamka lagama tegaayo wuxuu idhi ittafaqa almuxaqiquuna cala ana radqa bilmucjamati ghalatun fi hada almawdic qastallaani baa odhanaya muxaqiqiintu culammada markaa umuuraha taxqiijisaa waxay isku waafaqeen radqigu halkan inuu ghalad ku yahay liitbaaqi ahli allugati cala annahu bilmuhmalah iswaafaqa ahlu luguhu isku waafaqsan yihin inuu muhmalo ku sugan yahay daraaddeed oo muhmalo yahay oo radcun yahay sidaa uu yahay waa yahay waxaanay markaa yidhaahdaan radqigu waa ladkhun min zacfaraan xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa alradcu wa alsabqu waa in yaroo sibaaqa ama midabayn ah oo min xinnaa'in macnuhu saasuu dhacay sidaas ayuu dhacay calaa kulli xaal culamada qaarkood waxay yidhaahdeen labada tay doonto ha noqotee halkan isku mid baa loo jeedaa isku macni shaka fii haada shaykhu imaamu tirmidi waxauu yidhi lafdigaa waxaa ka shakiyey sheekha ayaa ka shakiyey sheikhu waa sheikhii tirmidi sheikhiisii oo ibraahim ibnu haaruun ah ayaa ka shakiyey ibraahim ibnu haaruun weeye shaka fii haada yacni lafdigaa waxaa ka shakiyey ashaykhu shaykhii waa tirmidi shiikhiisii oo ibraahim ibnu haaruun ah xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa sanadkiisu daciif weeyaane
in nabigu calayhi salaatu wasalaam madaxiisa in yar oo xinno ah inuu ku sugnaa oo ay markaa ku aragtay gabadhaasi jahdama inay ku aragtay ayuu tilmaamayaa hadduu asaxo waa daciif sanadkiisiiyo xadiiska ka dambeeya xadiiska 48aad qaala imaamu tirmidiyu xaddasanaa cabdullaahi bnu cabdiraxmaan qaala anba'anaa camru bnu caasim qaala xaddasanaa xamaad bnu salama qaala anba'anaa xumaydun can anasin qaala ra'aytu shacra rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam makhduuba cabdullaahi bnu cabdiraxmaan waa addaarimi waynu soo marray waa imaamkii weynaa weeye camr bnu caasim waa camr bnu caasim ibnu cubaydillaahi alkilaabi waa nin saduuqoo run sheegid badan laakiin xifdigiisa qadar yari ku jiray qadar yar baa ku jiray laakiin asxaabuulkutubi sita dhammaan waxbay wariyeen bukhaari iyo muslim iyo afarta sunanba saas aawadeed culamada qaarkood haddaan wax mukhaalafa iyo waxba ayna ka muuqan xadiiskiisa waa quweeyaan xamaad ibnu salama isaguna waa la garanaya waan soo marray waa nin siqaa buu ahaa asxaabuulkutubi sittana waxbay wariyeen xumayd waa xumaydin tawiil waa soo marray marka sanadku wuxuu noqonayaa waxa weeye siday culamada qaarkood ay sheegeen saxiix calaa sharti muslim waayo sanadkan yani wuxuu noqonayaa shardiga muslim inuu ku asaxayo ayuu noqonaya sida sheekh albaani ba marka uu tilmaamayo raximahu llah can anasin qaala ra'aytu shacra rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam makhduuba anas wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay shacra rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam timaha rasuulka calayhi asalaatu wassalaam makhduuban iyagoo markaa xinno markaa la mariyey oo xinno lagu beddelay oo lagu midabeeyey ayaan arkay anas baa sidaa odhanaya laakiin waxaynu soo marray iyadoo anas uu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtigii uu xinnayn lahaa ma gaadhin oo cirro ma gaadhin waynu jamcin doonnaa insha allah qaala xamaad wuxuu yidhi wa akhbaranaa cabdullaahi bnu maxamed bni caqiil qaala ra'aytu shacra rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam cinda anas bni malikin makhduuba wuxuu keenay yacni riwaayo kale uu keenay marka cabdullaahi bnu maxamed ibnu caqiil waxa weeye waa cabdullaahi bnu maxamed ibnu caqiil ibni abi taalib waa nin saduuqoo run sheegid badan laakiin xadiiskiisa in yar oo dacfa ku jira bukhaarina wuxuu ka yidhi waa muqaarib alxadiis a'immada qaarkooda xoogaa daciifiyeyna waa jiraan culamada qaar waxay maraan inuu xasanulxadiis yahay haddii wax mukhaalafa iyo wax la mida ayna ka soo bixin bukhaari adabulmufradku wax ugu wariyey xadiiskiisuna waa dhadhowyihuu odhan jiray yani waa yani markaa ma foga yani waa xasan oo kale saas aawadeed sheekh albaani uu taxsiininaya riwaayadan wuxuu leeyahay waa xasanatu lisnaad ayay noqonaysaa liajli markaa cabdullahi ibni maxamed ibni caqiil ilaa ibnu caqiil waa saxiix laakiin ibnu caqiil markay gaadho ayuu noqonayaa xasan saas aawadeed baa sheekh albaani u taxsiininaya u leeyahy waa xasan cabdullahi ibni maxamed ibni caqiil waxa uu yidhi ra'aytu waxaan arkay shacra rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam timihii rasuulka sala allahu alayh wasalam baan arkay cinda anas ibni maalik agtiisaan ku arkay yanii isagoo haya makhduuban xaal marka waxa la xinneeyey oo markaa xinno lagu beddelay marka anas ibnu maalik riwaayadaha markaa saxiixa ah ee bukhaari iyo muslim ku yimi duruq badan waxaa kaga yimi inuu yidhi markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam timihiisa ma xinnayn ama wakhti uu xinneeye ma gaadhin ama timihiisu cirrada ma gaadhin iyo tacaabiir la mida haddaa see loo kulminayaa anasoo haddana dariiq kale lagaga soo warinaayo oo haabit ah inuu markaa waxa weeye timihii rasuulka uu hayey inay xidhnaysnaayeen culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa suuroobi kartaa in wakhtiga la xidhneeyey ay tahay markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u geeriyooday dabadeed waa weji ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa suuroobi kartaa in laga tilmaamaayo waxa lagu beddelay inay ahayd yacni markaa ama waxyaalihii nebigu calayhi salaatu wasalaam udugee u ismarin jiray iyo ashyaada la midka inay ahayd ee xinno aynay ahayn waxa beddelay taana waa aqbali kartaa waxaa kaloo culammada qaarkood ay yidhaahdeen makhduubanta waxaa loo jeedaa sufro in lagu beddelay wax yaro cawlaya laakiin aan saani u casaynaynin waxay kaloo culammada qaarkood ay yidhaahdeen riwaayadahan waxaa ka xoog badan kuwa kale maadaama ay ka xoog badan yihiin uma beegtoomi karaan kuwa xoogga badan baa la qaadanaya awjuh bay culammadu ka mareen
awjuh kala duwan bay ka mareen cidda marka waxa weeye hadalka odhanaysa waa xinnaysnaa yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam timihiisa waa xinneeyey anas markaa riwaayadaha aan ka soo aroorin cid kale ka soo arooray waxaabay aqbali karaan hadday sugnaadaan in la yidhaahdo wakhti naadiruu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xinneeyey lagana tilmaamaayo haalibka inuu uga jeedo ma xinnayn markuu tilmaamaayo anas uu sheegaayo oo wakhtiyada qaarkood dee waxa dhacda marka sugis iyo diidmo ay iska hor yimaadaan waxaa la yidhahdaa almuhbitu muqadamun cala annaafi ka wax sugayaa laga hormarinaya ka nafyinaayo ma qaacido lianna maca almuhbiti ziyaadatu cilmin waayo ka wax sugaya cilmi dheeraada ayaa weheliya oo cilmi dheeraada ayuu hayaa laakiin marka raawiga keliya ay tahay oo anas oo keliya laga soo wada warinayo yacni ishkaal baa ka imanaya in la yidhaahdo mooyaane waa ilaawey iyo wax la mida la yidhaahdo mooyaane calaa kulli xaal kollay axaadiista sixada badan li waxay sheegaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu timihiisa xinnayn ciradii marka waxa weeye la hayey midharhkii timaha ahaa ee cirada ahaa ee la hayey ee ama anas hayey ama ummu salama ay haysay inay markaa xinno yeeshaan oo markaa waxa weye midabaysnaadeen oo iyagoo midab xinno leh la arkana ma faa'iidaynayso nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu xinneeyey waxaa dhici karta bacda mamaatihi in la xinneeyaa suuroobi karta oo riwaaya baa laga soo wariyey anas ibnu maalik in la weydiiyey oo markaa dabeedna uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay khadaba man kaana cindahu shayun min shacrihi liyakuuna abqaa lahu yacnii ciddii marka waxa weeye haysay timo rasuulku sala allahu alayh wasalam uu lahaa ciddii haysay way xinnaysay si ay marka waxaweye u baaqi noqdaan oo timahaasi aynay dee u googo'in oo dee nooc difaacay noqonaysaa waxaan la marinayaa nooc difaaca ayay markaa u noqonaysaa taasna waxa weeye culammada qaarkood waa ku tawjiihiyeen oo waxay ka mid tahay waxyaalaha masalada markaa ishkaal saaraya ayay ka mid tahay khulaasadu waxay tahay timuhu hadday ciroobaan waxaa sunno ah in marka waxa weyaan yacni la beddelo cirada oo marka ama wax cawlaya ama wax markaa casaynaya lagu beddelo ama xataa wax bunni ka dhigaya laakiin madowga laga ilaaliyo saas yadaabaa sunna ah waana culammadii aad bay ugu dadaali jireen sunnadan khidaabka oo khaas ahaan weliba markay timaha ciradu ku badato boos ay noqdaan amaba ay ku dhowaadaan inay dee ciradu ay ka badato kuwa madow ayaa sunnada noocaasi weliba markaa ay sunno sii noqonayso markay waxa weeye yar tahay xaalka noocaasa yacni waxaa markaa sideeda in laysaga daayo ayaa markaa ka fiican laakiin markay badato in la xinneeyo ayaa sunno ah waajib ma aha waa sunne culammaduna xoogaa ictinaabay sunnadan ku samayn jireenoo xataa taraajimta marka wax loo tarjamaynaayo culammadii hore iyo kutubu taraajim aad bay uga hadlaan masaladan markaasaa ragga culammadii loo tarjamaynaya waxay wa kaana yakhdibu wuxuu ahaa mid timihiisa marka waxaan yani xinneeyuu ahaan jiray wa kaana laa yakhdibu kutubu taraajim waa ku badan tahay yacni mid caalim laga sheego inuu timaha xinnayn jiray iyo mid laga sheego inaanu xinnayn jirin mid walba tarjamada markaa taraajimta way ku soo naqlin jireen halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk